kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegaynaa dagaal culus oo hadda ka socda qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Aadan Yabaal. Degmada Aadan Yabaal saaka dagaalyahan ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar afar jiha oo qarxyo ku bilowday ku soo qaaday halkaasna waxaa fariisin ku lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. Sidoo kale fariisinka halkaas ciidanka ay ku lahaayeen waa fariisintii ugu weerayd ee ku lahaayeen gobolka Shabeellaha waxaana ku sugnaa taliye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in qasaari uu wadna Al-Shabaab lagu gaarsiiyay welina uu ka socdo halkaasi. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Al-Shabaab halkaas weerar ku soo qaaday hadda duqeymo ay ku socdaan lana beegsanayo raggii halkaas weerar ku soo qaaday. sidoo kale waxaa jira in qasaari uu badnaay iyo dhimashada uu badnaa Al-Shabaab halkaas lagu gaarsiiyay maadaama weerar qaraxyo ku bilaw saaka oo gaadmaha halkaas ay ku soo qaadeen waxaana la soo warinayay in Al-Shabaab markii halkaas weerarka ay ku soo qaadayeen xalay ragga halkaas weerar ku soo qaaday ay xalayba ku hooydeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Aadan Yabaal deegaano u dhow. balse ugu dambeyn saaka waa birigii Al-Shabaab ay halkaas weerar ku soo qaaday waxaana weerarkaas Al-Shabaab ay ku bilaabeen qaraxyo halkaasina waxaa ku sugnaa taliye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida haddana waxaana halkaas ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac waxaana la soo warinayaa in Al-Shabaab halkaas weerar ku soo qaaday hadda dagaal culus ay kula jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kale dagaalku waxaa qayb ka ah diyaaradaha Soomaaliya ka caawiya dhanka hawada halkaas oo qeybo ka fulinaya waxaana la soo warinayaa in guud ahaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay xerada uga baxeen kooxda Al-Shabaab markii xerada gudaha ay u soo galeen in xerada guud ahaan la isugu daray markii ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay dib uga gurteen xerada la isugu daray duqeyn iyo weerar toos ah. duqeynta weli way ka socotaa xerada oo Al-Shabaab weli gudaha ay ka dagaalamayaan waxaana la soo warinayaa in xubno yar ay ka hareen dagaalin halkaas ku soo weeraray waxaana la rajeynayaa in saacadaha soo socda halkaas lagu soo afjaro bacdama weerar gaadmaha saaka halkaas ay ku soo qaadeen. sidoo kale ciidanka ayaa waxay ka hortageen weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen halkaas tani ayaana suuro gelisay in ciidanka maalmihii la soo dhaafay awaamirta culus ee taliye ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Odwaa Yuusuf uu siiyay foojignaan dheeriya inay muujiyaan. sidoo kale taliyaha ayaa ciidamada furmaha hore dagaalka jooga waxa uu ku amray ama amar uu ku siiyay in hadda kadib askari seexan kara uusan jirin furmaha hore dagaalka bacdama Al-Shabaab markastaba weerar inay soo qaadaan ay suurtagal tahay sida saaka oo kale dhacdaba. taliyaha ayaa awaamirtan u bixiyay ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaanba ay fuliyeen waxayna muujiyeen foojignaan dheeriya taasoo hadda Al-Shabaab dagaalka ay soo qaadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u suuro gashay inay ka hortagaan halkaasna lagu jibiyay kooxda Al-Shabaab ee weerarka qaraxyada halkaas ku soo qaaday. qaraxan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax qasaaro oo saraakiil iyo askar oo badan ka gaaray ma jiraan waxaana la soo warinayaa in ragga halkaas weerar ku soo qaada qaraxyada ahaa iyaga ay ku naafooween qaraxyadii badankoodana iyaga ay isla beegsadeen sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha halkaasi ku sugan. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in halkaas duqeymo culus oo Al-Shabaab iyo weerarka halkaas duqeymo culus oo Al-Shabaab la beegsanayo ay weli ka socdaan waxaana Al-Shabaab halkaas weerar soo qaaday weli lagu beegsanayaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Aadan Yabaal oo saakay weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen. sidoo kale taliye Odwaa ayaa qayb ka ah dagaalka sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shid aysan dagaalka qayb ka oo qorigiisa saaka garab ugu jira oo halkaas ka barbar dagaalamaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asiga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. hore ayay u sheegeen labada nin in hadda ka bacdi askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furmaha hore dagaalka ku sugan ay garabkooda yihiin haddii weerar Al-Shabaab ay ku soo qaadan ay garabkooda ka dagaalami karaan balse saaka ugu dambeyn taliye Odwaa iyo gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shid waxay muujiyeen in ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay ka garab dagaalami karaan nafurnimo ay muujiyeen tani ayaana u muuqata geesinimo sidoo kale waxay u muuqataa in dhiiranaan loo sameynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bacdama gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaka ka garab dagaalamayaan ciidanka halkaas weerarka lagu soo qaaday. taliyaha iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidoo kale dagaalka saaka qayb weyn ayay ka qaateen waxaana la soo warinayaa in aagi ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ay soo gali waayeen markii ay isku dayeen in dhinac kale u wareegsadaan ay dhabarjab ku sameeyeen waxaana halkaas kadib soo gaaray diyaaradaha dagaalka Soomaaliya ka caawiya dhanka hawada oo halkaas duqeymo culus ka fuliyay. wixii warar ka soo kordha adiga ayaa ugu horeyn doona qasaare halkaas ka dhashay balse marka hore waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii hore ay soo booqatay inaad subscribe dhajana like ni saartid si aan u helo saaxiib adigoo kale aad iyo aad u mahadsantahay.